dhaqanka iyo awqaafta waa kan maxamuud cusmaan bulxaan oo ka waramaya. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelo ay weeliso marwada koobaad dalka Marwe Khadra Maxamuud Xayd ayaa saaka gudoomiyay munaasabada bandhiga buugaagta oo ka qabsoomay guriga ummadda. Munaasabadaasi waxaa qaban qaabada lahayd wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka iyo awqaafta oo ugu horeeyo wasiir Muumin Xasan Barre waxaana uu joogay xubnaha xukuumadda mas'uuliyiin sare diblomaasiyiinta dalalka shisheeye u jooga dalkeena, wakiilada hay'adaha caalamka iyo qorayaal iyo mas'uuliyiinta bulshada rayidka. waxaa xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelo uu taageero buuxda la garab joogo qorayaasha bandhiga buugaagta kuwaasi oo 60 kamid ah uu si toos ah u kharash galiyay madaxweynaha. geesta kale tan iyo waqtigii uu talada wadanka qabtay madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelo waxa uu ku dadaalay xoojinta afka hooyo isagoo ku booriyay waalidiinta in carruurta lagu barbaariyo dhaqanka iyo afka hooyo, waxayna taasi carruurta ku yeelan doontaa astaan iyo aqoonsi u gaara. munaasabada bandhiga buugaagta ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayado iyo heeso kala duwan oo halkaasi ay ku soo bandhigeen dhalinyaro wax ka barata macadka qaran ee fanka ee IDA. waxaa la yidhi murti wixii aad hayseen rag iyo dumarba la kaalay waa la qorayaayo albaab baa loo helay laga bixiyo laye murti inta ku qosli ma islaam baa murti laga qoraa oo waayo bal aqligaadii keenayso ma islaam baa murti baa laga qorayaayo buugaag baa laga qorayaayo maxaad garanood ku hadli baliisha ma anigu maxaan garanay tiidahna waan hayaa soo dareer dayladayadii oo hey soo dare kaale xaga socota kow tii carruurta markaan kabada soo hayna tiin ku yeesay allah miyaan wali loobe igu daawade laakiin haddaan ku sheegay qadiga xadi waxaan ku sheegay may anu waan gabiyaa oo waadi taqaana horta gabay inaad igu jeclaato kugu guursanayso ma garanaysid haade waagi ha anu kolkaan seexdana waan gabiyaa kolkaan soo jeedana waan gabiyaa intaad iga xadayna waxaygii uun baad hoosta ka qabatay waxaad yeeshaa bal meesha anaa tagaye oyoy haye anaa tagayo soo eegi anu uma maleynaya inaad dumar wax laga qoraye rag uun baa gabay iyo murti lagu ogaaye naagtu baa la yidhi baleeg waa inay hadalkaaga maqasho hambadaadana cunto yar baa lagu yidhi reerka nabal markhaatiga ka hada anigu tu reer wadanayso uma ekidi waxaan ku yidhi reerkaaga joog oo daranyada ka dhago waxaa iska dhaafa waa halkan kusoo kala hadhan labadeen marxabadda way dhanta. xafadan ka dhacday guriga ummadda saaka waxaa lagu soo qaaday sidii loo horumarin lahaa dadka wax qora. maanta waa maalin la xusayo qorayaasha dadka reer Djibouti. xafadan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelo iyo marwada koobaad dalka ahna gudoomiyaha ururka haweenka qaran Marwe Khadra Maxamuud Xayd, gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha dalka, wasiirka dhaqanka iyo diinta iyo awqaafta iyo marti sharaf kale. madaxweynaha maanta wixii ka dambeeya waxa uu dadka reer Djibouti ku dhiirigelinayaa in wax la qoro qoraalkana la badiyo. madaxweynaha waa qofka jecel in markasta la garab joogo dhiiranaan iyo horumar waxaana uu jecel yahay dadka wax